Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal ku soo dhawaada channelka Alnaqay Media. Waad ku mahadsantiin sida wacan aad ku xirantaan channelkeena. Caawa waxaan doonayaa inaan halkan idinku soo gudbiyo sheeko yar oo kooban. Sheekadaas ka soo xigtay nin oday ahaa oo meel aan isla fadhinay iiga sheekay. Sheekadana waxay ahayd waagii horeetad waxyaabihii waagii horeetad oo iiga sheekay. Wuxuu dhahay hadirta baabuurka candbeedlaha meesha jooga u jeedid ninka iska lahanti buu leeyahay dhahay marka waxa jirto u dhahay waa ninka geela leh sida candbeedlaha oo kala hantida candbeedlahan uu soo xaray oo kala geel u xareen jiray wuxuu dhahay geela ayaa la raran jiray oo meel walba badeecadaha loogu qaadan jiray asiga ayaa lagu guuri jiray ninka geel iska waa laga kareesan jiray marka wuxuu yiri shan geel ninkii lahaa ama shan rati ninkii lahaa shay buu lahaa u dhahay shashanta baa yimido uu shay beelay shashantana waxa la yiraahdaa baabuurtii hore baabuur oo xamuulkii waxaas lagu qaatay iyo rarka iyo alaabaha waaweyn iyo badeecadaha iyo baabuur weyn oo adiga la rarto sida kuwa hadirtaan candbeedlayaashan loo rarto oo kale loo rarnay oo waagas ugu horeeyay soo galay wadanka adduunka markaas isticmaalkiisa la bilaabay marka wuxuu dhahay shashantaas markuu soo galay ninkii geela lahaa uu shiiday oo wax geelisi ka rarto badeecado ku qaato ganacsato ijaarati iyo wala waay marka hadana wuxuu yiri odayga waa la qiimeyn jiru odayga gabdho dhalo oo gabdho leh meelaha uu taga fadhiyada oo loo kici jiro la soo dhaweyn jiray fadhiisa waa la qiimeynaa si gabdhihiisa hadii bir loogu doonto oo asigana uu san ugu xumeeno oo ku wanaajiyo gabdhihiisa oo bixiyo marka wuxuu dhahay shan gabdhood ninkii lahaa shay buu lahaa sharmoota baatimada wuu shay beelay ninkii gabdhaha lahaa gabdhihiisa la qiimeyn jiray markii dambe sharmoota baatimada wuu shay beelay dhahay gabdho dhanba wax ka doonanayo mala gabadhii la rabaa la gambinaa masaafo meesha la rabaa laga dhacaa kuwa kale oo iska halaabeen marka wuxuu dhahay odayga saasoo ku qiimo beelay haddana wuxuu jiray shan gamoon ninkii lahaa shan gamoon ku lahaa gamoon waxa la falaarta iyo waagi hore waxa lagu dagaarami jiray falaar iyo waxaas lagu dagaarami jiray iyo mindiyo iyo waran iyo shan gamoon ninkii lahaa shay buu lahaa dhahay shan lagaab baa yimido wuu shay beelay shan lagaabna waxa uu ka wadaa qori oo halxabo u dhacay oo automatic aan ahayn dadka qaarkiisna waxay badaan qorigaas breaking galadoy marka qorigaas ay imaado dadkii gamoonka lahaa iyo weeshiideen u dhahay waad ku mahadsantiin sida wacan aad noola socotaan oo sheekadiina aad u dhameysateen sheekadiina halkaas ayay nooga egtahay waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh